markana afgooy maamulka degmada afgooy gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay howlgallo maalmihii u dambeeyay degmadaas ay ka sameynayeen ka oo lagu xaqiijinayay amniga magaalada wariyahana Cabdulle Cali online ayaa waxa uu la kulmay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo sidoo kale dib u dhiska degmadaas afgooy Mahdi Axmed Xasan waxa uu wax ka weydiiyay xaaladaha guud ee degmada hagaag waxaan la joogaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo dib u dhiska maamulka degmada afgooy ee mudane Mahdi Axmed Xasan gudoomiye soo dhawow bismillahirrahmanirrahiim waa ku dhawahay marka koowaad ilaa mahadle marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda Universal wanaagga ay nagala shaqeyso iyo sida ay ugu heelan tahay shaqooyinka ee bulshadeeda ay uga raali tahay khaasatan wariye online oo habeen iyo maalin nala taagan meelaha ugu riskiga badan xaaladiisa marmar ay khatar ku gali karta xataa aan ka waabanin 9 saac weyn maadii howlgal la aaday xataa soo taagan san waa u mahadcelinaynaa Universal kullee waxaan jeclahay inay ninkaas abaal u hayn doonto midda kale xaaladda amniga alxamdulillah rag baa ku dhintay oo hawshaas u taagan habeen iyo maalin ayagana ilaahay ka sukoon waa u mahadcelinaynaa wanaagga ay sameeyaan iyo sida ay ummadooda ugu heelan yihiin iyo maanta degmada ammaanka ay tahay oo tuugna waxba ka qaadi karin qabiilna waxba ka qaadi karin shabaabna waxba ka qaadi karin saddexdaas maadabo ilaahay ka sukoon waxa uu mahadcelinaynaa saraakiisha amniga iyo ciidankooda aadeen u mahadsan yihiin wax hadda dhibaato oo magaalada ka jira ma jiraan waxa isbedelka guud ee wadankan waxbaan la qabnaa oo wax anaga noo gaar ah nama haayaan laakiin amniga waa raga dhaxda u xirtay ayagana aad u mahadsan yihiin in loogu mahadceliyo lagu dalacsiiyo agabkii waxyaabaha ka dhiman loo dhameystirana waa dawladdu waa ka rajeynaynaa waa kartay gudoomiye maalmihii dambe ciidamada ammaanka howlgallo ayay wadeen howlgalladaasi maxaa ka soo baxay oo natiijo ah horshadooda howlgal ma dhammaanayo sida bini aadamka nolosha aysan intuu ka dhinto oo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo wuxuu xirtay mustaqbal u rabo amnigana saasoo kale howlgalka u raba mar walba waxbaa soo baxo caqabadaha lala kulmaa qabiilaa lagala kulmaa ciidamada dhexdooda caqabada lagala kulmaa shabaabkaa lagala kulmaa wax badanaa lala kulmaa intaasba waa loo dhabar adeygay aad iyo aad amniga afgooye aan hadda ilaahay ka suko mahad aan ugu qabnaa wixii naga soo horjeedo qori noo haystaan annagana waa diyaara u nahay habeen iyo maalin waa u taaganahay wixii cayayaan ahoo tuug ahoo ama waddo istaaga ama qaab kale isku dayana cambuulo carab saaran waay maba loo joojiyo kuwaas inta kale hawsha dhagdhag waay ka waran gudoomiye magaalada markaad fiirisid gudaheeda cayid fara badan baa jira dhismayaal baa magaalada ku soo baxay oo wadada hareeraheeda laga dhistay ma dhihi karaa waxay qayb ka yihiin amni darada way ka yihiin wax badan uga dignay dadka dhagama qabaan waxaa maqli jiray hasha iyadaa geela cunta iyadaana cabaada marka roob yar oo da'an waxay ku leeyihiin dhiiqaan galno biyaan galno raadiyaashay ka qayliyaan waa aragtay dameeraa biyo ku jira iyo waa meeloo maro waayey iyo dameer dhiiqa ku dhex jira lasoo sawiraayo iyo tooyada lasoo dhigay ayagaa ugu wacan hadday dadka dad oo muslin oo xalaala yihiin oo ilaahay ka cabsanaya qaadicu dariiq waa ninka waddada degan waddo walba cabiray leedahay meelay leedahay marshabiyeeday leedahay haddii qofku meeshaas ku ekaado annaga waxaan jaanis u heli lahayn inaan wasaqdana ka bixinno biyahana aan ka bixinno magaaladana magaalo istiraatiiji oo nidaam ay noqoto laakiin shacabkii waddadiyaa laga kari waayey marka intay waddada degan yihiin ma u malaynayo in oo ayagana ay ribx ka dhargaayaan naxariis ay helayaan uma malaynayo waa gartay gudoomiye ayadoo howlgallada ay socdaan oo aad dadaalaysaan haddana dhanka kale waxaa jira siba waayihii dambe weerarada al-shabaab ay ku soo qaadayaan magaalada barkoontada laga soo galo ciidamada ay ku sugan yihiin ma jiraan miyaa qorshayaal aad kaga hortagaysa arrimahaasi mise ciidamadii oo ku sugan barkoontada waxay noqdeen kuwo weerar sugiyaal oo keliya maya waa dagaalka marba qaab waaye dagaalka mar waa weerar oo meel la xoraynayo marna waa ciidan meel degan oo la soo weerarayo annaga xabad sugama nihine magaalo degan oo degmo deganaan nahay oo difaaceeda wadato wixiina soo weeraran waa iska caabinaa oo hadda annaga u malayn maa inay caana kaga dhargeen weeraradii ay soo qaadeen weeraro ay caana kaga dhargeen maaha waa gartay way ka shalaayeen wada shaqaynta bulshada iyo adinka ka waran annaga bulshada hadda bulshada weligeedba bulshada iyo dowladda horta dowladda lagu sheegaya shacabka waaye wada shaqayntana waa
waa ku qasban yahay qofka sida hurdada habeenka uu ugu qasban yahay faralka u tahay oo asaga wada shaqayntana faral ugu tahay wax weyn oo zaa'ida ma jiraan waa ka gudoomiye ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa shacabka reer Afgooye dhanka ammaanka iyo guud ahaan reer Afgooye maxaad leedahay horta maroodi biyo hadii loo diidana wuu cabaa hadii la siiyana wuu cabaa ammaanka horta shacabka inay ka shaqeeyaan ayaga dan u tahay laakiin anaga cida hadda u hoos fadhin oo magan uga nahay ma jirto in ay nala shaqeeyaan oo ayaga dantooda tahay haddii ay nala shaqeyn waayaan kulli waxa ka xaaya ayaga waa anaga ma marka waxa leedahay ayaga dan u tahay inay nala shaqeeyaan aad mahadsan yahay kaasi waxa uu hawriyaha telefishinka Universal degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulle Cali online oo wareysigaasi uu ka qaaday gudoomiye ku-xigeenka amniga dib u dhiska degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose Mahdi Axmed Xasan barnaamijka bandhiga ayaa la socotaan